Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qoraaxyadii la yaabka lahaa ee Hitler. Ku soo dhawow muuqaal cusub. Beenta ku celceli ilaa ay dadka ka rumaystaan. Hadduu ciidanka awooddiisa dhoolo tusto 6 bilood gudahoodna aan cid ku weerarin, shacabkiisa ayuu ku soo jeestaa. Waan awoodayay inaan dhammeeyo Yahuudda caalamka oo dhan, balse waxaan badankooda uga tagay si aad u ogaataan sababta aan u leynayay. Haddii aad guulaysato, cidna wax uma fasiraysid. Haddii aad jabtana, waa inaad dhuumataa si aadan ugu qasbanaan inaad cid wax u fasirto. Adduunka lagama weynayo qof adiga kaa xun ee iska dhoola caddee. Ninka ilmo yar ayuu ahaadaa ilaa hooyadii dhimato. Marka ay dhimatana degdeg ayuu ku duqoobaa. Haddii dhabarka lagaa toogto, ogow inaad safka hore ku jirto oo aad haliyey tahay. Hadalka dabacsani waxa uu qariyaa runta iyo xaqiiqada cad ee muuqata. Kaliya cidda dhalinta hanata ayaa mustaqbalka ummadeed hanata. Waayuhu waxayna bareen in arrin kasta oo akhlaaqda ummadda dilaya iyo dembi kasta oo bulshada laga galayba ay ka dambeeyaan oo gacan ku leeyihiin Yahuuddu. Runtii Yahuuddu waa aftahanada beenta ka taliya. Awooddu kuma sugnaato difaaca, ee waxa ay ku sugnaataa weerarka. Dagaalku waa sida qol madow oo aad albaabka ka gashay, ma taqaanid waxa aad kala kulmi doonto. La saaxiibyayda adoo hubkaaga diyaar la ah. Waynu jecelnahay tagtadii maadaama ay ina dhaaftay. Haddii ay soo laaban lahaydna waynu nici lahayn. Lama jibin karo qof aan qalbigiisa aqoon quus. Erayadu laga yaabaa inay been sheegaan, balse habdhaqanka runta ayuu muujiyaa. Gabdhuhu waa bulshada barkeed, barka kalena ayadaa tarbiyadaysa. Fulaygu waxa uu dhibtiisa u helaa 36 xal, balse hal keliya ayuu kaga kalsoonaadaa, waana inuu cararo. Hala murmin doqon, dadku idinma kala saarayaan labadiina kan doqonka ahee. Siyaasadaada ka xooji dhanka dumarka, raggu ayagaaba iska kaa raacayee. Kan guulaystay hadduu dhoolo caddeeyo, guulaystaha ayaa waaya macaanka guusha. Qaar ayaa aaminsan inay rag yihiin marba haddaysan dumar ahayn. Dadkii ugu doqonsanaa ee aan la soo kulmay waa kuwii igu taageeray qabsashada dalkooda. Masiibooyinka looma abuurin inaan isku dhiibno, ee waxaa loo abuuray inaan ka adkaano oo aan ka gudubno. Daqiiqad kasta aad caraysan tahay, maalin ayaad gabowga u sii dhawaataa. Carabka dheeri waxa uu muujiyaa gacan howlgab ah. Horumarka iyo ilbaxyada waa dadaalka xariifyada, ee ma aha afka noolayaasha. Qofka 2 shimbir hal mar wada eryadaa, labadaba wuu waayaa.